warar soo baxayana waxa ay sheegayaan Iran ayaa sheegtay in ay weerartay kaabayaal ay leedahay shirkadda Mareykanka ah ee Amazon oo ku taala dalka Bahrain, halkaas oo shirkaddan ay ku leedahay xarumo xogeed data center oo ah xarunta ugu weyn ee adeegyada ka fulisa dalalka Khaliijka, iyadoo weerarkan uu noqonayo midkii labaad oo ka dhacaya Bahrain oo ay Iran ku beegsatay xarunta shirkadda Amazon oo horay ay wala kulantay khasaare weerar oo Iran ay fulisay Imaaraadka Carabta sida ay warisay Reuters. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dadka qaar ama madaxda qaar si heer sare u soo dhaweeyo asigoo ku saleynaya dalalkooda waxa ka socda, kuwa qaarna ula dhaqmo kuwa xafiiskiisa ka shaqeeya ee shaqaalihiisa ayaa xali aad iyo aad u bahdilay madaxweynaha Lubnaan Joseph Aoun ayaa maanta sheegay aqalka cad ee Mareykanka isaga oo wada hadallo la yeeshay Trump. Inta ay warbaahinta la hadlayeen waxa uu madaxweynaha Lubnaan yiri, waxaan muddo dheer doonayay in aan la kulmo madaxweyne weyn oo adiga oo kale ah. Trump oo hadalkii qaatay ayaa waxa uu yiri, Trump ayaa ku jawaabay isaga oo kaftamaya, ma aragteen waxa uu yaqaan sida qalbigayga loo taabto oo wax walba la igu qanciyo, hadda wax kasta ayuu heli karaa ayuu hadalkiisa sii raaciyay, taas oo aan u qalmin madaxweyne dal dhan hogaamiya in sidaas loo bahdilo. ma doonaysaa inaad noqoto qof quraanka kariimka si sax u aqriya? ku soo dhawow markaska barashada quraanka kariimka ee Daarul Qur'aan Online. waxaad heli doontaa quraanka kariimka tajwiid iyo taxfiid, ingaada quraanka bilow ilaa heer sare, ducooyinka muhiimka sida xisnul muslim. faa'iidooyinka dugsigan uu la gaarka yahay waxaa kamid ah macallimiin khibrad u leh casharada online-ka, meel kastoo aad joogto waad ka baran kartaa jadwal fudud oo ku habboon carruurta iyo dadka waaweyn labadaba waa la qaadanaya. waxaa kaa hortaagan maanta bilow safarkaaga quraanka kariimka ha noqon qof dib u dhigta khayrka Alle. diiwaangeli nambarka shaashada kaaga muuqda ama guji calaamadda WhatsApp ee hoos.